halkani waa Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu xisaaban qodobada ugu darkaroon wararka aan idin haynana waxaa ka mid ah Fanaan Xariir Axmed Cabdullaahi oo fankiisu fooriyay askari reer dalalka reer Urfa ah oo 7 xabadood madaxa lagu geliyay darqad hay'adda cunnada adduunka ee WFP oo gaadiid tiro badan oo raashin iyo agabyo kale isugu jira marinaysa Anfar Kilil kuna wajahan kililka Tigreega fadlan haddii aad nagu cusub tahay chanaalka subscribe saar gambalelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya fiidiyowgana like saar share dheh oo asxaabtaada la wadaag wixii tala bixinana xagga hoose noogu reeb ku soo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf fanaanka da'da yar ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya waa Xariir Axmed Cabdullaahi ayaa ku guuleystay abaalmarinta hadalka ugu fiican dhanka ragga ee sanadkan 2021 abaalmarintan oo ay bixiso Somali Night Award ayaa waxaa fanaanka kula tartamayay fanaaniinta ugu caansan geyga ay Soomaalidu degto Fanaan Xariir wuxuu abaalmarintan ku mutaystay hibada codkiisa midhaha heesihiisa ee la barax tiray deganaanta dabeecad wanaagga iyo akhlaaqda ee daweyne ku manaystay wuxuuna ka mid yahay toobtaanka fanaaniinta Soomaaliyeed ee fankooda loogu jecel yahay maanta iyo qarnigan 21aad Xariir fankiisu faruhu ka baxay wuxuuna gaaray heer sare hambalyo horay u soco ayaan leenahay fanaanka waxaa xalay magaalada Darqod gaar ahaan xerada tababarka ciidanka lagu dilay askari ku jiray tababarkii isagoo oo jiifa xilli saqbar habeenimo ah waxaana lagu dhuftay 7 xabadood wuuna dhintay Allah u naxariiste waxaana loo sheegay in askarigan loo dilay argoosi iyo aana qabiil iyo shariimooyin horay u jiray askarigan la dilay ayaa naloo xaqiijiyay inuu ka soo jeeday degmada Kabardahal gaar ahaan qabiilka reer dalal ee reer Urfa Ilaahay ha u naxariisto marxuumka ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iyo iimaan waasaca Allah ka siiyo hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa gaadiidka dhaadheer ee saadka oo sida 900 oo metrik tan oo cunno dawooyin nafaqo hu iyo agabyo hoy isu jira in ka badan 50 gaari ka soo dhaqaajisay dalkaasi Djibouti iyagoo ku wajahan deegaanka Tigreega waxayna hay'addu sheegtay inay xaqiijinayaan inaan gaadiidkan lagu joojinin deegaanka Anfarta iyo meelo kale toona taasoo ka dhigan inay mas'uuliyiin sarsare oo ajaanib hay'addan ka tirsan ah ay garwadeen ka yihiin wadamarinta gaadiidkan si loo gaarsiiyo shacabka Tigreega ee ay dowladda Itoobiya rabtay inay gaajo kuleyso gaadiidkan ayaa hadda maraya sida naloo xaqiijiyay gudaha deegaanka Anfarta welina waxay suuristaag ku sameeya nalooma sheegin